marka ugu horeysa waa mahadsan tahay reediyo kulmiye. marka labaad arrimaha Soomaalida waxyaabo fara badan ayaa muddo badan jiray. marka ugu horeysa madaxweynihii hore Sheekh Shariif ma aha dadka lagu yaqaano mucaaradada furan xukuumadda maanta jirta ka soo horjeeda. hadalka uu soo jeediyay marka aad fiirisid dulucda iyo qotada uu wato uma fiicna xukuumadda iyo mucaaradkaba arrinta sidaas oo kala ah in hawada la isu marsiyo. marka waxa ii muuqata xukuumadda iyo mucaaradka in ay isku noqdaan bixiyaan guddi arrimahan xasaasiga ah ee la xiriira Soomaalida iyo sida wax loo maareynayo in miis wada hadalla ay ku dhameeyaan. Sheekh Shariif ma aha shakhsi caadi ah oo mucaarad ma aha. kursiga uu maanta madaxweyne Farmaajo ku fadhiyo ayuu ku fadhiyi jiray. wadanka xaaladda uu soo maray, xaaladda uu ku jiro, wax walba waa ninka dharagsan weey. hadalka uu jeediyay marka la fiiriyo waxa ay muujinaysaa in nidaamka dimuqraadiga ah ee Soomaaliya ay dooratay ku salaysan in hay'adaha dawladda ay wada shaqeeyaan in la isu gudbiyo ama lagu dhameeyo waxyaabaha khilaafaadka miiska wada hadallada nidaam dimuqraadi ku dhisan ayaa waxaad moodaa hadda inay meesha ka maqan tahay. marka anigu waxaan ii muuqata in hadalkaas uu jeediyay madaxweynihii hore in xukuumadda iyo mucaaradka ma aha kaliya Sheekh Shariif, Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweyne hore u ahaan jiray oo kala jooga, waxa kale jooga dad hore maamulada gobolada xataa ka soo qabtay in dib inta la isugu noqdo miiska wada hadallada la fadhiisto maadaama Soomaaliya ay muddo dheer ku jirtay dhibaato shacabka Soomaaliyeed ma filayaan in hadda ay dib u bilowdaan yootan iyo farqutaag iyo isdhaleecayn. marka Sheekh Shariif markii uu hadlay waxyaabihii uu soo hadal qaaday waxa kamid ahayd inuu yiri muddo 24 saac ka badan ayaan sugayay in dawladdu ay ka garaawdo xayiraadii ku soo rogtay duulimaadkiisa Kismaayo. maxaa isleedahay dawladdu way uga aamusan tahay muddo 24 saac inay ka jawaabto eedeymaha uga yimid Sheekh Shariif iyo tabashooyinka ku saabsan duulimaadka Kismaayo? marka ugu horeysa shakhsiyan arrintan la xiriirta duulimaadkiisa iyo ka joojintiisa waa ka weyn tahay waxa meesha hadalka ku jiray. waxa la rabaa marka ugu horeysa wadanka haduu dimuqraadi yahay waxyaabo fara badan waxa jira qofka muwaadinka uu xaq u leeyahay. qofka muwaadinka xuquuq buu leeyahay, waajibaad ayaa saaran. waxyaabaha hadda la xiriira xayiraadan iyo waxa ka dhashay anigu muhiimad weyn ma siinayo. anigu waxa muhiimada weyn siinaya waxa weeye nin mas'uul hore Soomaaliya ka ahaan jiray oo aan ahayn dadka mucaaradka ah ee lagu yaqaano inay warbaahinta inta badan ka hadlaan in cabasho intaas oo leeg uu soo jeediyo waxa ay muuqanaysaa in xukuumadda ay tahay inay arrintan miisaan xoog la siiso oo ay kulan la qaataan asaga kaliya maaha iyo mucaaradka kale la abuuro guddi tala buuxda ka bixiya masiirka uu dalka marayo siyaasad ahaan xilligan kala guurka ee xasaasiga lagu jiro marka la fiiriyo xagga amniga, marka la fiiriyo xagga dhaqaalaha, marka la fiiriyo xagga nidaamka gobolada iyo federalismka, marka la fiiriyo xagga wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland waxyaabo fara badan xasaasi ah jira. xukuumadda marka aad fiirisid xukuumadihii hore waqtigoodii iyo waqtiga hadda xukuumaddan u haray marka aad fiirisid waxa loo baahan yahay in bartilmaameed laga dhigto shaqo la qaban kara oo shacabka Soomaaliyeed u qalanta. ma aha in farta la isku taagtaago, ma aha in la ismidmudo, ma aha in maalin walba dadka Soomaaliyeed ay niyadda ka jabto ayagoo u hanqaltaagayay xaaladan adag oo ay ku jiraan xukuumad ka bixisa. Sheekh Shariif dad badan waxay ku macneeyeen hadalkiisa inuu ahaa message Soomaali ka baxsan oo Soomaalida oo dhan iyo dadka daniya Soomaaliya iyo qofkii mustaqbal dalkan ka lehba qusiya ayaa lagu macneeyay. saas ma kula muuqda?
marka aad fiirisid hadalka sida oo taariikh ahaan wixii waddankan uu soo maray xukuumadihii sida dimuqraadiga isu soo bedelay xukuumadahaas laftirkooda kama maqnayn mucaarado kama maqnayn ayaga dhexdooda ah xukuumaddan marka la fiiriyo iyo howlaha ay ku jirtaan xukuumadahaasoo kale wixii ay soo qabteen iyo wax la mida ayaa laga filayaa laakiin hadda xukuumaddan waxay xukuumadaha kale uga duwan tahay mucaaradkii ayaa hadda waxaa ku soo biiraya dad aan mucaaradka lagu aqoonin marka xukuumadda waxa weeye haddii dadkoo dhan farta ay kugu wada taagaan waxa weeye waxaa imaanaysa in beeshii caalamka ee kharashka badan gelisay in hay-adihii dowladda Soomaaliyeed dib loo yagleelo in uu shaki galayo waxa la leeyahay shalay saas baa dhacday daraad saas baa dhacday tii ka horreysay saas baa dhacday aniga waxaan qabaa Soomaaliya xilligan ay joogto wax garad ku filan ayay leedahay hay-adaha dawliga dad loo qaateena oo mas'uuliyiin ayaa ku jira oo xal u heli kara dhibaatadan hadda jirta ee soo cusboonaatay in xukuumadda ay bisayl iyo madax furnaan inta la timaado la abuuro guddi ka kooban muxaafid iyo mucaarad oo u shaqeeya danaha ummadda Soomaaliyeed lagana gudbo far isku taagtaaga iyo is-eedaynta midda kale waqtiga haray marka aad fiirisid waqtiga haray xukuumaddan inta ay soo jirtay iyo waqtiga u haray marka fiirisid iyo shaqooyinka laga filayo marka aad fiirisid waxa weeye wax isu dhigma maaha marka waxa xukuumadda iyo mucaaradka u soo jeedinaya inay dib isu fiiriyaan ragga xukuumadda dhaliilaya oo Sheekh Shariif ugu dambeeyay ayaga lafkooda xilkan way soo hayeen way yaqaaneen xukuumaddan way ka dharagsan yihiin xukuumaddan caqabadaha haysta iyo dhibaatada haysata marka ay noqoto xagga dhaqaalaha marka ay noqoto xagga ammaanka marka ay noqoto xagga dadka xukuumadda dhexdeeda ka shaqeeya ee aan ehelka u ahayn howlaha ay hayaan waxa nagu yar anaga aad nagu yar ayaaba qaarkood haddaan ku sheego waa naxaysa idinka magaalada aad taqaanaan magaalada Muqdisho marka la fiiriyo dhibaatada jirta iyo xaddiga jirta marka aad fiirisid waxa weeye gobolada qaar ayaa waxaad moodaa xagga maareynta arrimaha mujtamaca in looga horeeyo xukuumadda hadda jirta Soomaaliya ka jirta marka waxaa loo baahan yahay waxaan oo dhan inta iska fiirsado in la iskaashado in la isku matqaanaa la isu tanaasulo in wax la isfahamsiiyo in laga gudbo wixii taariikhda hore u soo maray waa u soo maray Soomaaliya dagaal waa ka dhalagtay dhibaato waa ka dhalagtay shacab waxay u baahan yihiin dhalinyaro u badan yahay wadanka boqolkiiba 70 in ka badan waa dhalinyaro shaqo la'aan ayaa jirta waxbarasho la'aan ayaa jirta caafimaad xumo ayaa jirta waxaa jira dhibaatooyin kale oo xagga amniga ah jira dhibaatooyin xagga deegaanka ayaa jira cudurro ayaa jira abaara ayaa jira soo noqnoqda xilligan hadda kuleelkiiba mataqaanaa xilligii roobka la filayay way waa la socota xaaladda jirta waxyaabo fara badan oo waxaa jira ay tahay xukuumadda inay wax ka qabato maaha in waqti la isaga lumiyo mas'uulkan halkaas waa aadi kara iyo halkaas ma aadi karo arrimahaas waxa weeye marka la fiiriyo arrimo yar weeye arrimo ka waaweyn ayaa wadanka jira una baahan in si qumaati ah ay guddi u qabtaan ay miiska ku wada hadlaan ay ka joojiyaan in warbaahinta hadal la isu disiyo ama baraha bulshada la isku weydaarsado hadalla aflagaada iyo dad aan dan u ahayn arrimaha Soomaaliya inay buunbuuniyaan